shalay waxaa lagu saxiixay sida halkan ka muuqata magaalada Sharm el Sheikh heshiiska xabajoojinta oo madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Turkiga iyo hogaamiyaal kale ay saxiixeen maxaa qarsoona oo shirkaasi ku hoos dugnaa oo saxaafadda ay ka hadlaysaa maxamed shirkii magaalada Sharm el Sheikh ee dalka Masar waxaa ka qayb galay in ka badan 20 hogaamiye oo ku jira madaxweyne Trump waxaana la filayaa in shirkaasi uu xoojiyo in caalamka dhan uu taageero qorshaha nabadeed ee marinka Gaza ee madaxweynaha Mareykanka dadka arrimahani la socda ayaa waxay aaminsan yihiin shirka iyo in Trump laftirkiisa uu booqday Qaahira ayaa waxay dardar gelisay qiimaha siyaasadeed ee Netanyahu ugu fariisanayso hadduu shirka fashiliyo ama heshiiska fashiliyo ama isku dayo in uu yareysto heshiiska bayaanka wadajir loo soo saaray ay wada saxiixeen dowladaha Mareykanka Qatar Masar iyo Turkiga ayaa lagu sheegay heshiiskani in lagu soo afjarayo dagaal ka socday 2 sano ka badan ee dhibaatada weyn iyo khasaaraha geystay wuxuuna bog cusub u furayaa gobolka bariga dhexe sidii loo dhisi lahaa rajo ammaan iyo barwaaqo la wadaago waa sida hadalka loo dhigay dalalka saxiixay heshiiskan ayaa ballan qaaday in khilaafaadka mustaqbalka lagu xalin doono diblomaasiyad iyo wada xaajood halkii lagu xalin lahaa qori caalami ama tallaabo military way aan ka eegno marka dhanka Israa'iil iyo go'doominta ay kaga jirta caalamka maxaa ka soo kordhay dhanka caalamka marka la fiiriyo Israa'iil ayaa waxaa ku soo food yeeshay go'doomin aan hore loo arag oo heer caalami ah weli waxaa socda cawaaqibka ay kala kulmayso caalamka ee ka dhan ah dagaalkii ay Israa'iil ku qaaday marinka Gaza taasoo sumcaddii Israa'iil lahayd waxyeello weyn u geysatay xukuumadda Netanyahu ayaa waxay dhib weyn kala kulmaysaa siday uga soo kaban lahayd dhibkaas gaaray go'doomintaana waxa ay noqonaysaa caqabad kale oo ku ilaalinaysa Netanyahu inuuna marnaba isku dayin in uu yareysto heshiiskan cilmibaare Sari Orabi ayaa ku nuuxnuuxsanaya in Israa'iil ay hadda u baahan tahay waqti ay ka soo kabato saameynta ka dhashay 2 sano oo dagaal adag ah oo dhaqaalihii iyo bulshadii Israa'iil dhibaato weyn u geystay xataa dowladda Mareykanka gargaarka Israa'iil siisay oo lagu qiyaasayo $100 bilyan ayaa khasaaray waxaana uu ka digayaa khabiirkani in taageerada noocaas oo kala ah ayna Israa'iil inay helayso damaanad u haysan haddii ay sii wado dagaal ma dhamaata ah waa gartay isla Israa'iil inta ka bixin wararkeeda ugu dambeeya marka laga tago hadiiba damac uu kaga jiro Netanyahu dagaalka inuu dib u bilaabo waxa la leeyahay daal iyo dagaalkii niyad aysan u hayn ciidamadu ayaa caqabad weyn ah halkaas maxaa laga ogyahay Israa'iil gudaheeda militarigii iyo ciidamadii sirti ayaa xaaladda ay ku sugan yihiin lagu tilmaamay daal aad u weyn waxaana ciidamada sirta iyo militarigana ay si buuxda u sheegeen inay ka soo horjeedaan inuu dagaalka marinka Gaza sii socdo taliyaasha ciidamada ayaa sheegay inay ka cagajidayaan in dagaal lagu noqdo waxa ayna sheegeen in khasaare xoog leh uu ka soo gaaray dagaalkaasi ciidankuna ay daalan yihiin aragti midaysan oo siyaasadeed oo mustaqbalka Gaza in ayna siyaasiyiintu faraha ku hayn Orabi ayaa hoosta ka xariiqaya in ciidamadu ay ka baqayaan in ay ku dhamaadaan in laga dhigo ciidan booliis oo si joogto ah marinka Gaza u jooga xaaladaas oo ciidanku ay rabaan inay ka baaqsadaan arrinta kale oo walwal kale ayaa ah sida uu khabiirkan hadalka u dhigay oo laga yaabo inay aad u xakamayso Netanyahu in uu dagaal kale dib u bilaabo waa ciidankiisa culayska ay ku hayaan
iyo ciidanka sirta. wargeyska New York Times ayaa tilmaamaya asna sharaxayana in xaaladda jirta ay tahay mid aan sahlanayn gudaha Israa'iil. runta aan laga baaqsan karin ayaa waxay tahay guusha ah in laga adkaaday ururka Xamaas oo ay xukuumadda sheeganaysay khiyaaligii ku qornaa kutubta diimeed ay masiixiyiinta iyo yuhuudda leeyihiin ayaa fashilantay. xabad joojintan waxa ay burburisay 2 sano ee lasoo dhaafay ballankii la qaaday oo ah guul buuxdaan gaarayna Xamaas ayaan tirtiraynaa. sanado badan Netanyahu waxa uu diidayay in la yeesho wax wada hadal oo xabad joojin lagu gaarayo, wuxuuna sheegayay waa inay isdhiibaan. waa sidoo hadalka u dhigayay ururka argixisada oo Xamaas ka waday. wasiiradiisa ayaa iyagana waxay ballan qaadayeen inay awoodda militariga Xamaas ay gebigeedba burburinayaan. xataa waxay ka doodayeen inay xoog u qabsanayaan marinka Gaza oo ay yuhuudda deegaana uga sameynayaan. aragtidaasi ayaa afka goosatay oo burburtay hadda. natiijaduna waxay tahay ay ku timid sidaasi waa adkaysiga, sabarka, dulqaadka Falastiiniyiinta iyo Israa'iil oo ku fashilantay hadafkii ay dagaalka lahayd. aan ku soo gabagabayna marka Maxamed suurtagalnimada marka dagaalka dib inuu u bilowdo inta bay la egtaa marka laga gudbo dabaaldega la xiriira inuu dagaalka istaagay. Netanyahu ayaa ku adkaysanaya in heshiiska hadda la gaaray uu yahay wajigii koowaad ee heshiisyo badan oo isdaba joog noqon doona. arrimo xasaasi ayaa ku jira oo ay ka mid yihiin in ciidanka Israa'iil ay gebi ahaanba marinka Gaza ka baxaan, in ururka Xamaas ay hubka iska dhigaan, in maamul caalami ah uu marinka Gaza la wareego. waxaasoo dhan weli lama xalilin, mana lagu faahfaahin wajaxaajoodka madaxweynaha Mareykanka. arrimahan sida u muraqsan yihiin iyo sida aan loo kala saari karin waxyaabaha ku qoran qorshaha Trump ayaa waxa ay noqonayaan mid albaabka loo furay mustaqbalka in laga hadlo. fikir ahaan, si uu dagaalka uu u soo cusboonaado, joogitaanka ciidanka Israa'iil ayaa weli waxay joogayaan marinka Gaza. taasna waxay u ogolaanaysaa Netanyahu inuu ciidankiisa dib u habeen ku samaysto soo abaabulo. haddii uu doonana uu dagaal dib u bilaabo. lafagurayaasha ayaa waxay ku doodayaan Israa'iil baa laga yaabaa taa beddelkeedii inay hadafiyo ay leedahay xadidan ama howlgalle xadidan si ay u xakamayso, ay gacanta ugu hayso xuduudka jidgooyooyinka ku yaala ee la isaga gudbo, si ay u maamusho ama u gacmayso gargaarka soo gelaya marinka Gaza, iyo inay weeraro khaarijin siyaasadeeda ku dhaqaaqdo iyadoo aan dagaal ballaaran ku noqon. qaababka noocaana ayaa laga yaabaa Netanyahu inay u ogolaadaan inuu ku qanciyo wasiirada iyo taageerayaashiisa xag jirka ah, hase ahaatee uu ka baaqsado si toosa inay isugu dhacaan dowladda Mareykanka. inta aaladaha saas oo kale ah uu ku gaari karayo istiraatiijiyada ay Israa'iil u dan leedahay, iyadoo awoodaha gobolka bariga dhexe ka jirana ay weli sii wadi doonaan inay ka hadlaan in xiriir caadi lala yeesho Israa'iil ama heshiiska Abraham. Netanyahu weli waxa uu isku dayayaa inuu dib u qaabin u sameeyo wixii uu yeeli lahaa. hase ahaatee dagaalka waxaad moodaa in uu ka cagajiidayo ka qayb qaadashada nabad buuxda si uu isku dayo intuu fursad uu wax dib u qaabeeyo helayo. arrintaasna cid walba ayaa indhaha ku haysa. waa tahay maxamed, waa mahadsan tahay. daawadayaashanu ay mahadsan yihiin. inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka
daawada si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir aynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo